waxaan baran doonaa Binance interface wajhada hore ee Binance ayaa baran doonaa. Hore waxaan usoo sameysanay account-keeni, sidoo kale waxaan ku sameynay verification ayaa ku sameynay oo hadda account-kii waa kaasa verified-ka noo ah. Haddaba marka wajhada hore ayaan rabnaa inaan isla fiirino. qaybta marka ugu hooseysa ayaan ka bilaabeynaa home, markets, trade, futures iyo assets ayaan fiiri doonaa qaybta ugu horeysa. Home-ka marka sida caadiga ah waa meesha laga fiiriyo si guud Binance marka la joogo exchange-ga si guud waxaa ku soo baxaya futures fara badan baa ku soo baxaya. Tusaale ahaan hadda waxaan dul joognaa favorites, hot, gainers, losers, new waxyaabo noocaas ayaa ku soo baxaya coinanka inta dhacsan yihiin coinanka ugu horeeyo kale. Xaaladaas ayaa si guud lagu ogaadaa. Waxaa ku xiga markets marka wuxuu xooga saaraa coinanka marka listiga ku jira, xaaladda ku sugan yihiin, qiimahooda, intay dhacsan yihiin, intay kacsan yihiin ayuu ku sheegayaa. Tusaale hadda BTC oo kale 94,440 ayay maraysaa 0.13 ayay up tahay. Ethereum oo kale 0.42 ayay down tahay. Taas uu kala sheegaa. Marka marketska wixii suuqa la xiriira waa. Sidoo kale waxaa muhiima meesha muhiimka waxa waaye inagu waxaan ka ganacsanaa spotka ayaan ka ganacsanaa. Mar walba waa inaan ku taagnaadaa spot waaye. Asha market hoostiisa spot waa inaan ku taagnaadaa. waxyaabahan kale u dhawaanin. Sidoo kale waxaa muhiima meeshaan oo aan ka baranaynaa bayrka. Tusaale ahaan hadda waxaan u jeednaa USDT in uu maartay ku lamaansan yahay lacagahan. haddii aan bedelno ka dhigno USDC isbedel baa ku dhacaya. ETH USDC, SOL USDC. hore maxay ahayd? BTC USDT ayuu ahaa. haddii aan ka dhigno FDUSD haddaan ka dhigno wax isbedelaysaa BTC FDUSD, ETH FDUSD, Doge FDUSD, SOL FDUSD ayay noqonaysaa. BNB haddaan ka dhigno, BTC haddaan ka dhigno, sidaas ku soconaysaa. marka qaybtana waa paireska ayaa laga doortaa. waxaa noogu xiga trade ayaa noogu xigta. Trade-ka marka waa meesha coin-ka buy iyo sell laga sameeyo waayo. oo hadda wuxuu noo joogaa coin-ku buy ayuu noo joogaa. kana maxaa waaye sell ayaa maartay u noqonaa. qaabkaas ayaa loo isticmaalaa. Futureska marka qaybta marka waa qayb inaga xaraanaga ah oo inaan galno maartay isan banaanayn. marka waa meesha lagu go'ay waaye oo maartay gaaladu ay aadka u jabeen iyo dadka kale oo muslimiinta isticmaala. sababtoo meeshaan waa meel halaag ka jira waaye. dadkii waa looga digay maalin walba waxa yacni liquidation lagu sameeyo waa la yaabaysaa lacagaha maartay lagu gubayo. waxyaabahaas marka khatarteeda ay leedahay. waxaa noogu xiga assets ayaa noogu xiga. assetska marka meeshaan waa meesha ugu muhiimsan markii laga hadlayo suuqa. qaybta marka shaqo weyn bay qabataa. meeshaan hadda assetska ah hore waxay u ahaa jirtay wallet ay hore u ahaa jirtay oo hadda update-kii ugu dambeeyay magaca u soo bedeleen oo asset ka soo dhigeen. haddii aan inta uga gudubno qaybtan qaybahan kor ayaan fiiri doonaa. tusaale ahaan qaybtan hadda favorite-ka kale haddaan ku dhufano waa qayb yacni coinanka aad xiisaynin sidoo kale maaragtay aad ku darsan kartid waa. marka hadda waxaa check noo saaran BNB, ETH, ADA, BTC, XRP iyo Banana ayaa noo saaran. coinanka marka haddaad check ka qaadid oo kala keeni kartaa. marka annaga waxaan rabnaa inaan ku darsano listiga BTC, Ethereum iyo XRP. saddexaasaan ku darsanaynaa. kadib maxaa leenahay add to favorites ayaa leenahay. added to favorites ayuu noo soo qoray. marka qayb dhan oo category ah ayaa noo abuuranta marka. sidee marka usoo dari karaa coin-ka aan rabo favorite-ka? tusaale ahaan hadda meesha searching-ka kore ee BMT-ga waa isbedelaa. holcan waxaa waaye coinanka trending-ka oo sidaan dadku raadinayaan waaye. halkaas ayaa ku dhufanaysaa. coin-kan laftirkiisa aan raadina marka BMT-ga aan raadina marka BMT-ga aan fiirino marka aad u kacsanaysa u jeedid 43% ayuu kacsan yahay
oo coin daadanayay uu ahaa waa coinkan kulliba coin cusub oo dhawaanaha soo galo waaye sidaan ka direemi karno. marka waxaan rabaa inaan coinkan ku darsado listigan ku darsado ayaan rabaa. intee taabanaa marka waxaan taabanaa marka meesha xidigta ah ayaan taabanayaa. xidigta markaan taabto micnaheedu waxaa waaye qaybta aan xiiseehay ayaa laygu daraya sectorkaas ayuu aadayaa. qaybtan kale marka haddii aan fiirino followinka waa wixii aan follow gareedo dad waxaa jira content creators oo wax kasoo qora suuqan wax soo dhiga maanta oo dhan. marka annaga maadaama aan dad hore u follow gareynin dadkan ayuu noo soo bandhigaa. tusaale ahaan sidoo kale ninka odaga ahaa Binance lahaa uu ku jiraa meesha Richard Tang waa CEO-ga cusub ee Binance oo kale Binance Academy naagtan kale dhayarka ah meeshay soo gashadeen Binance announcement. marka qaybtan maaragtay waa muhiim marka inaad la socotid. marka waxaan leenahay flow 6 account-kan ayaan la soconaynaa marka flow ayaan dhahnaa marka. okay hadhow marka dadkan waxay soo dhigaan oo dhan meeshaan ka arkaynaa marka. okay waxaa jira marka qayb kale oo muhiim ah oo newskan lagala socdo. tusaale ahaan hadda waxaan ku dhufanaynaa qaybta kore ee ku qoran tahay loogada Binance ka muuqato ayaan ku dhufanaynaa. markaan ku dhufano hadda wuxuu noo yahay Binance wuxuu noo yahay light ayuu noo yahay. waxaan ka dhiganaynaa pro ayaan ka dhiganaynaa marka. markaan pro ka dhiganay sidaan ayuu isku bedelay. qaybta marka hoose ay ku qoran tahay square-ka ayaa taaban kartaa si aad newsada update-ka u heshid. coin-an kala taxliilinayo newsada update-ka halkaas ka helaysaa. qaybta marka waa muhiim following-ka hadda taabano dadkii hadda noo soo baxay aan follow gareyna marka kuwaana